inaad muuqaaladeena si bilaash ku daawatid waa mid aan ugu tala galnay oo waqti badan gelinay. laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second. Assalaamu calaykum. Aqoontum awoodba. waxaan rabaa in halkan kusoo gudbiyo qaybtii afaraad ee taxanaheennii mudnaanta fikirka Tolman. waxaana qaybtan afaraad ku eegi doonaa sheeko aad iyo aad la yaab u leh oo aad wax badan ka kororsan doonto. runtii waa sheeko ka daaran qiso dhab ah oo weliba aad ka faa'iideysan doontid cashar muhiim ah. kusoo dhawaada mawduucana maanta. intaan sheekada u gudagelin aan ka jawaabo su'aasha aan ku bilowna mawduuca ee ahaa aqoontum awoodba. waxa aan maqalnaa marar badan aqoontu waa awood. dhabtii saas ma aha. aqoontu waa xog, waana awood kaydsan. waxa ayse awood dhaba noqotaa marka ficil lagu daro. ma ii sheegi kartaa farqiga u dhaxeeya qofka aan waxba akhrin karin iyo qofka wax akhrin kara balse aan waxba akhrin? runtii sida xaqiiqda ah wax badan uma dhaxeeyaan. maskaxdu sida murqaha oo kale ayay marna isku soo aruurtaa oo yaraataa, marna ay kala baxdaa oo fidaa. waxayna ku xiran tahay hadba jimicsi inta leeg ay ku samaysid. haddaba aan kula wadaago sheekadii aad sugaysid. waxaa jiray nin ganacsada ah oo rooti maraq leh laamiga geeskiisa ku gada. ma lahayn wax aqoon ah, waxna ma akhrin karin, sidaa darteed ma akhrin jirin wargeysyada. sidoo kale wuu dhaga cuslaa oo sidaa daraaddeed idaacadaha ma dhegaysan jirin. waana aragti xumaa oo wararka ma daawan jirin. laakiin himmad ayuu u hayay shaqadiisa, sidaas darteedna suuq fiican ayuu haystay. waxa uu bilaabay inuu keeno hilib iyo rooti ka badan intii hore, soona gato alaab dheeri ah. isaga oo sidii iyo si kasii fiican ganacsigii ugu sii kobcayo ayaa waxa ku soo biiray wiilkiisii oo dhowaan waxbarashada soo dhammaystay. kadib wax la yaab leh ayaa dhacay. wiilka ayaa markuu ayaan la shaqeeyay aabbihiis, ilaa waa ninkaas jaamacadda dhammeeyey, ayaa aabbihii ku yidhi, aabe miyaadan ka warqabin suuq xumida ina soo wajihi doonta dhowaan? aabbihii ayaa ku warceliyey, maya ee iga waran. wiilkii ayaa markaas yidhi, xaaladda dhaqaalaha ee adduunka hoos ayay u socotaa, kan waddankeennuna waa ka sii liitaa. waa inaan u diyaar garowno xaaladdaas xun ee soo socota. odaygii ayaa is yidhi, maadaama wiilku wax akhriyo oo una yahay jaamici oo jaamacad dhammeeyey, wararkana uu dhegaysto ama daawado, waa inaad hadalkiisa dhayalsan oo aad dhegaysatid. maalintii xigtay ninkii waxa uu sameeyey in uu dhimo shaqaalihiis, boorkiina maqaayadii uu ka fujiyo. himmaddiisii uu u hayay maqaaxidana way sii yaraatay. isla markiiba waxaa bilowday in suuqii yaraado, dadkii ay iska dhinac maraan meheradiisii, suuqiina uu hoos u dhaco. ninkii ayaa maalintii dambe isagoo oo faraxsan wiilkiisii ku yidhi, wiilkaygiiow, aad ayaad ugu mahadsan tahay sida aad digniinta ii siisay. waa runtaa oo waxa aan ku dhex jirnaa dhaqaala darro waddanka oo dhan ah. haddaba waa maxay dulucda sheekadani? sheekadani waxayna fahansiinaysaa farqiga u dhaxeeya maskax badnaanta iyo garaadnimada. waa maxay maskax badnaan? maskax badnaantu waa inaad si dhaqso leh wax u baran kartid. waxaan kaloo sheekadan ka baranaynaa in marar badan wanaag ama xumaan rajayntu, macnaha inaad wanaag rajaysid ama xumaan rajaysid si aan la dareemayn inay isku bedeli karaan xaqiiq iskeed ku imaanaysa. waxaan kaloo ka baranaynaa sheekadan inaad ka fiirsatid cidda aad la tashanaysid, haddana mar kasta adeegso garaadkaaga marka aad go'aan gaaraysid. waxaan rabaa inaan kula wadaago 6 sifo oo qofkii laga helo, ha ahaado mid wax bartay ama aan wax barane, xaqiiqdii guul u gaarayo. sifada koowaad waa shakhsiyad, qofnimo. qof inuu yahay qof shakhsiyad leh. sifada labaad
waa ku mayal adeegid. qofku inuu ku mayal adeegi karo ama ku adkaan karo wixii uu damco inuu qabto, ku adkaysan karo. sifada saddexaad waa geesinimo. sifada afaraadna waa ballan ilaalin, commitment. qof inay ka go'an tahay inuu ballanta iyo axdiga dhowro. sifada shanaad waa qadarin, dhowrsasho. qofku inuu waxyaabaha xumaanta ah, waxyaabaha aan sharci u ogolayn inuu ka dhowrsado. sifada lixaad waa inuu noqdo qof shaqadiisa ka soo bixi kara. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan la wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid. inaad muuqaaladeena si bilaasha ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay, laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal